بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. ويجب عليه على المكلف waxaa ku waajib noqonaya an yacrifa inuu barto adilata alcaqaa'idi caqaa'idkii adiladoodii inuu barto daliilyaalkii caqaa'idkii almadkuurati lasoo sheegay caqaa'idkii lasoo sheegay ee 20 sifo oo ilaahay u waajibay iyo 20 ka mustaxiilka ahaa iyo halkii u jaa-iska ahaa waana soo sheegnay oo in aanay maxsuur ahayn sifaadka ilaahay u waajibay oo aan lagu xasrinayn intaan laakiin intaani ay tahay inta ugu gudaha weyn oo kuwa kale inta badan ay soo hoosgelayaan sidaa darteedna adoonku inuu intaan ka aamino ka ictiqaadiyo ay waajib ay tahay walow ijmaal ba allaha ka dhigo duuduub ahaan ba allaha ka dhiga in uu adiladii caqaa'idkii barto ayaa waajib ku noqonaya adoonka mukallafka ah ijmaalkii waa maxay bian yastadila inuu daliishado weeye calaa kulli sifatin sifa la arkaba biwujuudi lmakhluuqaati makhluuqaadka jiritaankooda inuu usoo daliishado weeye ka khalqi lardi wadaalika mithaale ka khalqi lardi ardada abuuristeedii wasamaawaati samaawaadka abuuristoodii oo kale markii la yidhaahdo ilaahay qaadir weeye markuu yidhaahdo hadde maxaa kuugu daliila markii la yidhaahdo inuu leeyahay cirkan iyo dhulkan iyo waxa u dhexeeya abuuritaanka uu abuuray baa iigu daliila inuu qaadir yahay haddaanu qaadir ahayn ma abuuri kareen ilaahay waaxid inuu yahay maxaa kuugu daliila hadduu yidhaahdo cirkan iyo dhulka iyo waxa u dhexeeya abuurista uu abuuray baa iigu daliila haddii uu laba iyo ka badan ahaan lahaa sidaan caalamkani uma quruxsanaadeen uma taagnaadeene way ku dariiri lahaayeen ilaahay in uu caalim yahay maxaa kuugu daliila haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay dhulkan iyo cirka iyo waxa u dhexeeya abuurista uu abuuray baa iigu daliil ah lianna haddii uusan ahaan lahayn caalim ee jaahil yahay waxba ma abuuri kareen adiladaasi marka waa adilada caqliga adilada naqliga ahina hadda waxa weeyaan iyagu waxaa la yidhaahdaa adilada naqliga ahi waxaa loogu daliilayaa qofka mu'minka ah oo qur-aanka rumaysan laakiin gaal haddii aad markaa caqiidada rabto in aad ka hanuuniso amaba aad ku aftirto xujo marka qur-aan uma soo daliishan kartid suumaba rumaysna qur-aankii waa ina adilada caqliga ah aad kaga dhaadhicisaa wixii gaalada lagu aftiri jiray adilada caqliga ayay ahaayeen wayajibu waxaa waajib noqonaya biri calayhi cala almukalafi ruuxa mukalafka ah dushiisa aydan mar kale an yacrifa inuu barto maa shay inuu barto maago yajibu waajibay fii xaqi rusuli rususha xaqooda calayhim asalaatu wassalaam rususha xaqooda waxa waajibay calayhim asalaatu wassalaam salli salaam korkooda allah yeelay iyo wamaa yastaxiilu fii xaqihim xaqooda waxa mustaxiilka ah iyo wamaa yajuusu fii xaqihim xaqooda waxa bannaan wa jumlatu daalika arrintaa isku geynteeduna 9 weeye waxyaabaha rususha u waajibay waa 4 waxyaabaha ka mustaxiilka ahina waa 4 waxa u jaa-iska ahina waa 1 sifo falwaajibu kan waajibay asidqu run weeye walamaanatu ammaano weeye watabliiqu gaarsiin weeye walfadaanatu dhug iyo fahmo weeye 4taa shay baa u waajibtay rususha rasuul kasta oo ka mid ah sidqi baa u waajibay haddii aanu markaa run uusan sheegin waxaa ka laasimi lahayd ilaahay inuu been sheego walciyaadu billaah maxaa yeelay ilaahay baa yidhi rusushayda raaca marka haddiiba uu raaca yidhi aniga ayay iga muxuu ahaa wakiil iga yihiin raaca hadduu yidhi rasuulkii hadduu been sheegay marka inuu ilaahay waxyigiisa marka qof beenlow ah loo aaminay baa ka laasimi lahayd taasina waa mustaxiil waxaa u waajibtay marka sifadaas sidqiga la yidhaahdo way u waajibtay waxaana la yidhaahdaa xilliga ay rasuulka laga dhigay iyo iskaba dhaafe intaan rasuul laga dhigininba
way ahaayeen marka sidiiqiin oo sidqigaas ayay ku shaqaynayeen oo u waajibay walamaanatu amaana u waajibtay wax khiyaano la yiraahdaa ka mustaxiilaho haddii ay wax khiyaansan lahaayeen de waxa weeyaan ilaahay uma uusan aaminin waxyigiisa marka khiyaana ka mustaxiila amaana ayaa u waajibtay oo tabliiqu gaarsiin baa u waajibtay inay makhluuqa gaarsiiyaan wixii la soo faray ayaa u waajibtay haddii ay wax qarin lahaayeen markaa laguma aaminin waxyiga ilaahay sidaa darteeda waxaa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddiiba ay inuu wax qariya ay ka suurto geli lahayd marka aayadaha isaga lagu canaantay sida cama yatasaa'aluun waxaan dhihi lahaa cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa aw yadakaru fatanfacahu dikra aayadaha isaga lagu canaantay ayuu qur-aanka ka qarin lahaa dadka ka qarin lahaa haddiiba uu qarini ka suurto gal tahay laakiin waaba mustaxiilba inuu qariyo wa tabliiqu gaarsiin baa u waajibtay waxyaabaha makhluuqa loogu soo diray loogu soo dhiibay qayb waxaa la amray inuu u sheego qaybna waxaa la amray inuu ka qariyo qaybna waa loo doorgeliyey cidduu doono inuu u sheego cidduu doonana uu markaa ka qariyo qaybtii marka la amray inuu u sheego waajib weeyaan inuu u sheego waa waajibtay oo inuu ka qariyaa mustaxiil qaybtii inuu ka qariyo la amrayna de uu ka qariyey isagana inuu sheegaa waa mustaxiil qaybtii markaa loo doorgeliyona cidduu doono ayuu ku gaar yeelay cidduu doonana waa ka qariyo walfadaanatu fahma ayaa u waajibtay dhug baa u waajibtay fadaana fahma ayaa u waajibtay nebi lagama dhigo ruux muqafalahoo la khiyaani karo oo la dagi karo oo caqliga laga xadi karo ruux nuucaasi lagama dhigo fadaana u waajibtay inuu dhug leeyahay baa u waajibtay rasuulka oo makriga gaalada iyo hagardaamadooda uu fahmi karayo walmustaxiilu kan mustaxiilka ahina marka waa afartii hadda lasoo sheegay didadyaalkooda weeyo alkadibu been baa ka mustaxiil ah rususha ka reebtoon walkhiyaanatu khiyaana ayaa ka reebtoona mustaxiilka ah oo kitmaanu shay in shay qarintiisii baa ka mustaxiila shaygaasoo mimaa kii ka mid ah umiruu la amray bitabliiqihi gaarsiintiisa walbalaadatu fahma darra ayaa ka mustaxiila inay fahma darraadaanoo waxyaabaha makriga gaalada ay u qarinayaan aysan fahmi karin mustaxiil bay ka tahay waljaa-isu kan bannaana wuxuu yidhi fii xaqihim rususha xaqooda maa shay weeye huwa maagba min alacraadi sifooyinkii ka mid ah albashariyati basharka loo nisbeeyey allatii sifooyinkaasoo laa tu-addii aan gaarsiinaynin ilaa naqsin nuqsaan intii ka ah fii maraatibihim martabooyinkoodii alcaliyati sarraysay martabooyinka sare ilaahay uu gaarsiiyey rususha sifaadka bashariyada ah oo wax nuqsaana aan u keenayn ayaa markaasi u jaa-isaho u bannaan wadaalika mithaalika alakli cunitaankiiyo washurbi cabitaankiiyo waljimaaci haween u tegidiiyo walmaradi jiradii alkhafiifi fududaha oo kale wey waxaasoo dhani waa wax aan ceeb ku ahayn bani aadamka rususha way ku bannaan tahay inay wax cunaan inay wax cabaanin inay suuqa aadaan oo wax ka soo gataan iyo inay haweenka u tagaan iyo ay guursadaan iyo maradkii khafiifka ahaa markii dhinac laga fiiriyo marka maradku waa uu kaga cuslaa qandhadu way ka cuslayd qandhada dadka kale caadigaa qabata waa loo labanlaabi jiray laakiin maradka bani aadamka dabeecadiisu ay dhibsato oo ka caradho iyaga looma ogolayn sida baraska iyo judaamka iyo kuwaasi kuma dhici jirin baa layidhi ambiyada maxaa yeele waxaa imanayso in markaa dadkii loo soo diray bashariyadu way dhibsataa cuduradaasi nebi in la dhibsadaa ka imanayso haddii la dhibsadana dee qofka dhibsaday marka uu ku gaaloobaya sidaa darteed ilaahay ummaddiisa uga naxariistay in uusan nebiyaasha ku ridin cuduradaa la dhibsado wax dabeecadda bashariyada ahi dhibsataba nebiyaasha waa loo diiday looma ogolayn fahum markaa wuxuu yidhi ambiyada ilaahay calayhim asalaatu wasalaam salli salaam korkooda allaha yeelee
akmalu nnaasi dadka kuwa ugu kaamilsan weeye caqlan min caqlin xagga caqliga iyo wa cilman min cilmin xagga cilmigaba kuwa dadka ugu kaamilsan bay ahaayeen bacahahum ullahu ilaahay baa soo diray wa adhara ilaahay wuxuu muujiyey sidqahum runtooda ilaahay wuxuu ku muujiyey bilmucjizaati mucjizooyin buu ku muujiyey sidqigooda ilaahay wuxuu ku muujiyey bilmucjizaati mucjizooyinkii aldaahirati muuqmuuqday buu ilaahay ku muujiyey run inay sheegayaan faballaguu marka way gaarsiiyeen amrahu amarkiisii bay ummadda gaarsiiyeen wa nahyahu nahyigiisii bay ummadda gaarsiiyeen wa wacdahu yaboohiisii bay ummadda gaarsiiyeen wa waciidahu goodigiisii bay ummadda gaarsiiyeen waxay ummaddii gaarsiiyeen amar iyo nahyi wixii la amray waxaan baa laydin faray ilaahay baa idin faray bay yidhaahdeen wixii laga reebay waxaan baa laydinka reebay ilaahay baa idinka reebay wacdigii wixii ilaahay u yaboohay ciddii amarkiisa qaadata in uu siiyo oo janno iyo raxmo iyo rido ah ayay u sheegeen waciidkii ilaahay wuxuu ku goodiyana waa u sheegeenoo qofkii diida amarkiisa ciqaab ahaa iyo naar oo uu ku goodiyo ilaahayna waa u sheegeen wayajibu marka waxaa waajib noqonayo aydan mar kale calayhi cala almukalafi ruuxu mukalafka ah dushiisa aydan mar kale waxaa ku waajibayo an yacrifa inuu barto arrusula rusushii inuu barto rusushaasu almadkuuriina lagu xusay fi lqur'aani qur'aanka tafsiilan halhal inuu barto wahum kuwaasina alkhamsatu waalcishruuna waa 25kii alkhamsatu waalcishruuna 25kii way qur'aanka lagu xusay magacyadooda hum aadamun idriisu nuuxun huudun maac saalix wa ibraahiimu kullun mutabac luudun wa ismaaciilu isxaaqun kada yacquubu yuusufu wa ayuub uctada wahaakada caqiidatulcawaamka ayaa lagu taxayo waxa weeyaan nadmiyaal kaleeto iyo nasriba waa lagu sheegaa waxaa weeye 25ka magacyadooda in la barta ay waajib weeye inta kale ka soo hartay rususha ilaahay soo diray waxaa la isku khilaafsan yahay 3 qowl waa 315 maye waa 314 maye waa 313 saddexdaas qowl baa la iskugu waafaqay la iskugu khilaafsan yahay mid kasta oo la yiraahdaba rusushan 25ka maahane inta kale soo hartay inay xaq ku dheehnaayeen baa la aaminayaa oo laga rabaa inaad rumaysid oo aadan markaa waxa weeye jiritaankooda rumaysid aadan inkirin ciddii kitaab loo soo dhiibay kitaabku inuu xaq ahaa ciddii ilaahay rasuul ka dhigay rasuulnimadiisu inay xaq ahayd sidaas inaad rumaysid ayaa iimaankanaga ka mid ah gaar ahaanna kuwan qur'aanka lagu sheegay mid kasta oo la sheegay inaad barato inuu ambiyadii rusushii inuu ka mid yahay la sheegay inaad barato ay waajib weeye wa amaa hayruhum kuwaan 25ka hayrkood fayajibu waxaa waajib noqonaya calayhi cala almukalafi ruuxa mukalafkaa dushiis an yacrifahum inuu barto hayrkaas ijmaalan duuduub inuu barto ijmaal inuu u barto oo duuduub ahaan si guud ahaaneed inuu u rumeeyo ayaa markaasi waajib ku ah kuwaana tafsiil inuu u barto halhal inuu u rumeeyaa waajib ku ah wayajibu waxaa waajib noqonaya calayhi cala almukalafi ayda mar kale mukalafka waxaa ku waajibaya an yactaqida inuu ictiqaadiyo ana allaha ilaahay subxaanahu nastanaaye watacaala dikrigiisu sareey bacasa inuu soo diray annabiya nebigii al-ummiya ee ummiga loo nisbeeyey alcarabiya carabta loo nisbeeyey nebiguna muxamedun qad ursila waa nebigeena calayhi salaatu wasalaam ummi baa lagu sheegaa umminimada nebiga waxay u tahay mucjizo ilaahay uu siiyey bay u tahay wixii isaga ka soo harayna umminimadu waxaa la yidhi ceeb bay ku tahay isagana waxay sharaf iyo madxiyo waxay u tahay calaamadii nebinimada ayay u tahay ummi in lagu sheego maxaa yeelay nebigeena calayhi salaatu wasalaam waqtigii la soo diray
carab waxaa laga soo dhex bixiyey kulligoodba fusaxo ah oo markaa fasaaxada aad marka ugu dheereeyey sidaa darteeda waxaa nebigaana la mucjizo loo siiyey qur'aan marka fasaaxadoodii ay gaari weysay oo iyaga kalaamkoodii ka fasaaxo badanoo reebay oo ay keeni waayeen haddii ay wax walba sameeyeen qur'aanka noocaasi ah ayaa waxa uu ahaa qur'aanku mucjis min kulli jihatin buu mucjis ka ahaa min jihati alxifdi min jihati alqiraa'a min jihati alkitaaba min jihati almacna walbalaaqa wuxuu ka ahaa mucjis qur'aankii sidaasi ah marka ayaa waxaa qariib sii noqday oo haddana mucjiso labaad noqday inuu akhrinayo axad sidii hooyadii u dhashay aan kitaabadana baran qoraalkana baran hikaadana baran oo qoraalka carabiyada kii uu u dhashay xataa aan qori karin inuu akhrinayo taasaa mucjizo kale haddana sii noqotay oo labaad oo haddii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam yaryaraantii qoraalka baran lahaa waxbarasho kala geli lahaa kitaabada baran lahaa waxay dhihi lahaayeen oo dad kaloo badani ku qancin lahaayeen in markaasi uu waxaan soo aruursaday tawaariikhdii isagu taariikhyaalkii dadka soo qortay waxa uu isagu soo fasaaxadiisa ay ku keensaday qur'aankan taasi marka waxaa diiday inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiyun ummiyun uu yahay haddana wax walba oo fasaaxadiisi la gaari waayo qur'aankii oo fasaaxadiisi la gaari waayo inuu akhrinayo midda kale haddii markaa waxaa dadka kale ceeb bay ku tahay inay ummi noqdaanoo dee nebigu uma baahnayn waa loo waxyoonayay haddii ay qoraal lagu xujeeyo oo la yidhaahdo qoraalka halkan ku qorani waxaasuu sheegayaa oo been ah waa beentiina saasa ku qoran uu dhahay marka uma baahnayn inuu sidaanoo kaleeto farmad madoobeeyo waa laga kaafiyey laakiin annaga marka qofkii aan markaa fartiyey qoraalkii aan baranin waxba kicin karin ceeb bay ku tahay ilaa cid waxyoonaysa ma leh markaa wuxuu yidhi alcarabiya ee carabta loo nisbeeyey nebigu carab buu ahaa carab ma ahayn qofkii yidhaahdaa waa caasi alqurashiya ree quraysh kasii ahaa ee loo nisbeeyey alhaashimiya ree bani haashim kasii ahaa sayidanaa sayidkanaga ahaa muxamadan ahaa sala allahu calayhi wasalam birisaalatihi rasuulnimadiisana inuu ilaahay la soo diray ilaa kaafati alkhalqi khalqiga dhammaantiisna loo soo diray alcarabi carab iyo walcajami cajamba loo soo diray carab iyo cajamba walmalaa'ikati malaa'igna waa loo soo diray walinsi insi iyo waljinni jinni iyo waljamaadaati waxyaabihii qalqalalnaana waa loo soo diray kulligood waxyaabaha qaarna waxaa loogu soo diray litakliif insi iyo jinni waxaa loogu soo diray litakliifi baa loogu soo diray waa haqalayn baa la yidhaahdaa labada la cusleeyo weeye waxyaabaha qaarna waxaa loogu soo diray litashriif inay ku sharafoobaan ummatu muxamedka nebiyuna muxamedin sala allahu calayhi wasalam inay ummaddiisa inay ka mid yihiin inay ku sharafoobaan sida malaa'igta oo kale waxyaabaha qaarna litacmiimi baa loogu soo dirayoo risaaladiisu inay caam noqoto wax ka baxaaba aysan jirin jamaadaadkii oo kale tacmiimkaasaan loogu soo diray waa kuwii qiri jiray geedaha iyo dhagaxdu assalaamu calayka yaa rasuulallaahi bay qaarkood dhihi jiray abeesa waa tii ay qirtay inta markaa nin acraabiyihii uu abeesa wata ayuu wuxuu yidhi masawato lagooleyda masacagoolayda ay carabtu qalan jireen markaasuu wuxuu yidhi aniga waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray markaasuu yidhi haddii bahashaasi waxa weeye aan wataa ay ku rumayso waa ku rumaynayaa buu yidhi marka qariib buu ka dhigayaa inuu ku fogeeyuu rabay ayadii buu markaasuu nebigu warsado wuxuu yidhi man ana anuu yaan ahay markaasay tiri rasuulullaahi maxamed baa tahay ilaahay rasuul uu soo diray baa tahay markaas sidaasuu marka ninkiina wuxuu ku noqday marka uu ku rumeeyey marka waxyaabaha jamaadaadka ah yacqili maa laa yacqilba wixii ruuxa iyo wixii jamaadaadii intaba nebiga way qirsanaayeen risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam ilaa insiga iyo jinniga
oo ayaga markaasi cusaad iyo kaafiriin iyo muslimiin u qaybsamay maahan wa anna shariicatahu nabiga shariicadiisa nasakhad inay bedeshay waa inuu qofku ictiqaadiyo asharaa'ica sharciyaashii inay bedeshay oo nasakhday sharciyaalkaasoo almutaqadimata ka horeeyey wallaahu ilaahayna fadalahu nabiga inuu fadilay waa inuu qofku aamino calaa saa'iri lmakhluuqaati makhluuqaadka kale ee soo haray dushooda inuu ka fadilay wamanaca ilaahay wuu diiday sixata tawxiidi towxiidka ansixidiisa biqowli laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allaahu oo keli ah inuu towxiidku ku ansaxo lagu islaamo ilaahay wuu diiday oo qofka gaalka uga ansaxo ilaa in adaafa inuu raacsiiyo mooye annaadiqu kan ku dhawaaqaya ilayhi towxiidkii muxamadun rasuulullah inuu raacsiiyo maahane inuu ka ansaxo towxiidkiisu oo ku islaamo ilaahay waa diiday maxaa yeele gaaladii yahuuddii laa ilaaha ila allaahu qaar baa dhahayo ilaahay ma ilaah kale ma jiro badanaa way leeyihiin laakiin maxay ku gaaloobeen muxamadun rasuulullaahi bay diideen xataa qaar ka midihii waxay ahaayeen yuhuudda qayb ka midihii rasuul ilaahay inuu yahay way qirsanaayeen laakiin waxay diideen risaaladiisu inay caam tahay waxay yidhahdeen rasuulun lilcarab waa rasuul carab loo soo diray annagana looma soo dirin bay yidhaahdeenoo iyagu waa iskala weynaayeen in carab marka oo aan rasuul weligood laga soo dirin rasuulkoodu inuu ayagana rasuul u noqdo ayay iskala weynaayeen sidaa darteeda qofka kooxdaas ka midihi haddii uu islaamayo laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuulullaahi xataa ku islaami mayo oo kaliya waa inuu ku islaamo inuu raacsiiyo muxuu ahaa rasuulullaahi muxamadu rasuulullaahi ilaa jamiici alkhalqi ajmaciin iyo wixii la mid ah waa inuu raacsiiyo rasuulullaahi ilaa jamiici alkhalaa'iq inuu raacsiiyo khalaa'iqta dhana loo soo diray ama jamiicu lumam baa loo soo diray risaaladiisu tacmiim inay tahay inuu rumeeyo wey ayuu ku islaamayaa kaasoo kaleeto marka wuxuu yidhi ilaahay wuxuu diiday isagoo nabigiisa sharfaya calayhi salaatu wasalaam in markaasi sixata towxiidi towxiidka ansixidiisiiyo biqowli laa ilaaha ila allah inuu qowlkeeda ku ansaxo ilaa in adaafa naadiqu kii ku dhawaaqayay ilayhi towxiidka inuu raacsiiyo mooye muxamadu rasuulullah wa alzama ilaahay wuu laasimiyey subxaanahu wa tacaala nastahnaayo wa tacaala dikrigiisu sarreeya alkhalqa khalqiga ilaahay wuxuu ku laasimiyey tasdiiqahu nebiga rumayntiisa fii kulli maa shay kulligii in loo rumeeyo maaga oo akhbara uu ka khabray bihi maaga canillaahi ilaahay xaggiisana uu kaga soo khabray maagaasoo min umuuri dunyaa adduunyada umuurteedii ka mida iyo walaakhirati aakhira umuurteeda wuxuu ilaahay khalqiga ku laasimiyey nebiga in loo rumeeyo fii kulli maa akhbara bih wax alla wixii uu ka khabray in loo rumeeyo sida abubakr sidiiq uu markaasi u lahaa sadaqta yaa rasuul allah wax walba uu u sheego ayuu u rumaynayay markaasaa sidiiq loo bixiyo rumayn badane muuminka waxaa laga rabaa alla wixii nebigu la yimaado inuu rumeeyo wax shakiyihii uusan ka gelin iyo tawaquf iyo taradud inaysan ka gelin min umuuri dunyaa adduunyada umuurteedii walaakhirati aakhira umuurteedii ah wayajibu cala almukalafi aydan wallahu subxana wa tacaala